magaalada Muqdisho ee caasimada dalka dhawaan waxa soo gaaray ku dhawaad 3,000 oo askari oo ah ciidamada tababar ku soo qaatay dalka Uganda isla markaana dhawaan halkaas tababar ku soo xiray wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ciidamadani ayaa shalay iyo maanta waxay soo gaareen magaalada Muqdisho waxa ayna qayb ka noqon doonaan howlgalka wajiga labaad ee dagaalka dhanka kooxda Al-Shabaab dhan kale gobolka Galgaduud waxa ka socda abaabul xooggan kaasi oo lagu diyaar garoobay wajiga labaad ee dagaalka dhanka kooxda Al-Shabaab kadib markii uu shalay soo gaaray magaalooyinka Galcad iyo soo kala Ceeldheer taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Ibrahim Sheekh Muxudiin Cadow taliyaha ayaa halkaas waxa uu ka wadaa qorshe lagu doonayo in lagu bilaabo wajiga labaad ee dagaalka dhanka kooxda Al-Shabaab kaasi oo dawladda federaalka Soomaaliya ku doonayso inay gacanta kula dhigto degmooyinka Ceelbuur iyo Galhareer oo ah labada degmo oo kooxda Al-Shabaab ay hadda ka soo yihiin Galmudug 3,000 ee askari ee dhawaan tababarka lagu soo xiray dalka Uganda isla markaasina maanta iyo shalay soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimada dalka ayaana waxay yihiin ciidamo ka mid noqon doona ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ciidamadan ayaana xoojin doona wajiga labaad ee dagaalka dhanka kooxda Al-Shabaab maadaama dalka uu dhawaan ka bilaabo doona wajiga labaad bilii la soo dhaafay waxa hakad ku jiray wajiga labaad ee dagaalka dhanka kooxda Al-Shabaab ayadoon isbedel lagu sameeyay saraakiisha hogaaminaysa ciidamada xoogga dalka sida in la bedelo taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo soo kale taliyaha ciidamada dhulka saraakiishan cusub oo madaxweynuhu soo magacaabay ayaa habeen hore madaxweynuhu waxa uu kulan xasaasi ah kula qaatay madaxtooyada Soomaaliya kulankaasi oo looga hadlayay dardargelinta wajiga labaad ee dagaalka dhanka kooxda Al-Shabaab kaasi oo la filayo in laga daafuro ama laga bilaabo Galmudug taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed safarkii oo shalay ku soo gaaray deegaanada Galmudug waxa ku welinayay saraakiil Mareykan ah ayadoona Mareykan ay fadhigooda ugu weyn ay ku yeelanayaan Galgaduud ay ka dhigteen magaalada Galcad ee gobolka Galgaduud halkaasi oo si toos ugu soo degi doonaan ama ay uga duuli doonaan diyaaradaha duqeymaha ee Mareykanka wajiga labaad ee dagaalka dhanka kooxda Al-Shabaab ayaana waxa la filayaa inay qayb ka noqdaan diyaaradaha Mareykanka oo markii hore qayb uga ahay wajiga koobaad ee dagaalka sidoo kale wajigan waxa la filayaa inay ku soo biiraan diyaaradaha qumaadka u kacay ee dagaalka oo ay leeyihiin dawladda aan walaalaha nahay ee Turkiga diyaaradaha ayaana waxa la filayaa inay duqeymo ka geystaan fariisimaha ay ku dhumaalaysanayaan kooxda Al-Shabaab sidoo kale wajiga labaad iyadana waxa la filayaa inay qayb ka noqdaan midowga howlgalka Afrika ee ADMIS kuwaas iskugu jira ciidamada Djibouti ciidamada Ethiopia iyo soo kale ciidamada Uganda ciidamadan ayaana qayb waxa la filayaa inay ka noqon doonaan dagaalka dhanka kooxda Al-Shabaab oo si weyn uga bilaabo doono Galmudug dhan kale xogahan helin ayaa waxa ay sheegayaan in magaalada Masagawa ee gobolka Galgaduud oo saa ka bilowday dhaqdhaqaaq xooggan kaas oo ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ku doonayaan in maalmaha soo socda ay ku gaaraan deegaanka Cusweyn oo ah fariisinta kooxda Al-Shabaab ay markaas ka soo abaabulaan weerarada ay ku qaadaan Galcad iyo soo kale Ceeldheer iyo deegaanka Masagawa ee gobolka Galgaduud Al-Shabaab ayaa dhowr mar weeraro qorsheysan waxa ay ka soo qaadeen deegaanka Cusweyn oo kamid ah deegaanada hoostaga magaalada Galcad ee gobolka Galgaduud ayagoona weeraradaas ku beegsaday Masagawa Ceeldheer iyo soo kale magaalada Galcad ee gobolka Galgaduud laakiin qorshaha wajiga labaad ee dagaalka dhanka kooxda Al-Shabaab ayaa waxa la filayaa in lagu bartilmaameedsado fariisinta ay kooxdu ku leedahay deegaanka Cusweyn ee gobolka Galgaduud